madaxweynaha maamul goboleedka Ximiniya Xeeb Mudane Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa habeennimadii xalay waxa uu soo gaaray magaalada tan London iyadoo ay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Heathrow Airport ay ku soo dhaweeyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska sidoo kale waxa soo dhaweyntiisa ka qayb galay fanaaniin ay ugu horeysay fanaanada weyn ee Maryan Mursal Ciise soo dhaweynta Mudane Baarleex kadib ayaa halkaasi waxa talo ugu soo jeediyay fanaanada weyn ee Maryan Mursal Ciise waxa ayna tiri sidatan waxay keenay anaga gobol dhaxadana wiliga dagaal naga ma dhicin inaan nabad adkaysid kaliya dhinaca kale madaxweynaha maamul goboleedka Ximiniya Xeeb Mudane Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa uga mahadceliyay sida sharafta leh ay ugu soo dhaweeyeen jaaliyada Soomaaliyeed garoonka diyaaradaha ee wadankan Ingiriiska maraanu fursad u helnay in aanu wax ka weydiino safarkiisa ayaa waxa uu inooga warbixiyay sidatan waa maadsantahay waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo dhammaan shacabka ka soo jeeda Soomaaliya qaasatan gobolada dhexe oo aad ugu farxay maanta caawa sida ay soo dhaweeyeen anigoo ku soo baxay safar shaqo oo ku saabsanaa arrimihii gobolada dhexe Mudug iyo Galgaduud ana dareensanahay shacabku inay diyaar u ahaayeen dhismaha Mudug iyo Galgaduud waxaa jira shaqooyin kale oo aan dib faahfaahin uga bixin doono markii aan miidiyaha iyo waxgaradkii Soomaaliyeed ee deganaa deegaanka iyo kuwii Mudug iyo Galgaduud aan la hadlo waxyaabahan isleeyahay waa baahi loo qabo maanta in arrimaha si xasaasi looga hadlo safarka aad halkan ku soo gaartay imisa maalmood ayuu qaadanayaa waxaan qiyaasaynaa kulli dawladda Ingiriiska oo aan ka helay casuumaad aan ku imid iyo hadal kale aan isleeyahay dadkii waxgaradka la yeelay ilaa 3-4 maalmood aan jeclaa inaan joogo deegaanka haddii ilaahay yiraahdo ma isleedahay jaaliyada waqti waad u helaysaa oo waad la kulmi doontaa haddii ilaahay yiraahdo muhiimadeeda ugu badan waxay tahay jaaliyada Mudug iyo Galgaduud inaan waqti badan wada qaadano ka wada hadalna ayaheena iyo sidaan wax u qabsan lahayn aad iyo aad ayuu maadsantahay dhinaca kale soo dhaweyntaasi kadib madaxweynaha maamul goboleedka Ximiniya Xeeb Mudane Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex ayaa xaflad ballaaran waxa loogu sameeyay gudaha magaalada tan London Yusuf Garabey warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London